muuqaalada dhijiramay ma aragteen hadda ana teeda ay haysata kaca ku faan ku jira kaygii aan la kaca ku faan macdala waa mid kale aan ka shaqeeyo waliba kayga waxa aniga xanuunsan aan u dhex joogaa waxa waaye riyadan lahaa oo wali u dhex joogaa haddii aan caafimaad qabo hibadeeda hore kusoo laabto alxamdulillah haddii aan hibadeeda hore kusoo laaban waayana nafta walba aniga ma lahayna allaha iska lahaa dib u noolishana sana laakiin Soomaali marka aan nahay isku soo garab istaagna runtii boqolkiiba waxa laga helaa 10 aan isku soo garab istaagna oo qofka bila aadanka dareemi kara ama noloshiisa dareemi kara ama dareemi kara sidoo uu yahay qofkaani qof kale macnaheedu sheegayna boqolkiiba 19 kale waxa iskaga jiraan fasaxad laakiin waxay dareemayaan marka uu xanuunka iyaga uu qabto bay dareemayaan inta ka horeysan dareemayaan فيديو 10 دقيقة انت ميل سو فريستو waan dhameystiri jiray laakiin runtii hadda waxaan u dhameystiri waay xanuuna jiray darteeda u dhameystiri waay fiidiyodeeda waa aragteen hibadeeda hore maaha insha Allah laakiin waxaan rajeynayaa inay hibadeeda hore ku soo laabto cudurkii caafimaadka inta bilaha bixiya waxa ku maahan hadda iga wada dul qaado alxamdulillah mar walba alxamdulillah leeyahay dadkan la hadlaaya dadkan meesha ku jiraan la hadlaaya hibe waa barartay iska dhigay saan waa hibayda saa ii dhahayseen sidana tahay kana dhahay ininka basriin u soo ururiyay hadana wajigayga bay iga amaan helaa inta wajiga ii bad qabo wajigiina waa iga amaan helaa Soomaali weynay anoo ina kala qaaday oo iga amaan helaa bilis waxaan ka baryayaa dad qofka bilaadanka hadal dhibsanayeen saako isku soo programme wala waxyaabo badan saako isku soo programme qalbigii wada dhex buuxaya oo iiga buuxaan wali Soomaalida inay ku jirto xaasidnimo ku jirto ama ay ku jirto gacan qabsi ku jirto video aan soo dhiga hal saac waa la furaa waa la daawanaa hal saac la daawanaa qaybtood iyadoo aan share u siinin ama subscribe ku saarin hore u sii soconaya waa Soomaalida horumar waxay u gaari lahayn waxaas waaye qofkan bilaadanka walaalkaayo soo xanuunsan uu soo fariistay فيديوغيسا جارسي انتا سكونا جارسي قفك أجنبيها مركو قفك أجنبيها واركو كفرحا ووسو شير قريا انتا سكونا جارسيا maxaa Soomaali u diiday marka inay inta dhig yeelano fiidiyogan soo hal saac yaala ina 10 gaarsiin ama 5 gaarsiin see waa gaarsiin karna laakiin waa ciladaha ku jira Soomaalideena aan isjeclayn waay hadii la isjeclaan lahaa qof walba heer u gaari lahaa qofkii naga dambeeya heer gaar lahaa kii naga horeeya heer gaar lahaa kii Soomaali sida banaanba qofka xun ay buunbuunaysaa ee qofka fiican ma buunbuunayso anu hadda ay sheegay qofka xun aa buunbuunaysan ee qofka fiican ma buunbuunaysan hadda mar hore inta inii soo fariisto su'aal daba gaab inii soo xirta cajiin inii soo qaato waxa ogaay fiidiyogeeyay in 10 kun ay sheegtay isagoo aan gaarin hal habeen soo gaaray inuu boqolaal ku gaarayo laakiin waxa u jeedo oo aan ka sii socdo su'aal uma soo xiranayaan waa sii socdaa su'aal uma soo xiranayaan inta hore ay u filnaato ana dambiyeed kala qaadna ana inta su'aal soo xirtay inta soo fariisto 10 kun aan gaaran diyaar u yahay fahanta saan hada xuseen weeyaan si qurux badan oo kale wax ma igu siinaysanane saan hadi fiidiyoga ku share gareyn weeyaan maxay ku dhacday fiidiyo ani aan leeyahay waligiis ma soo noqonin oo hal saac ama 2 saac yaalo 500 daawanayso maxay ku dhacday waa dadka xaasidnimadooda inuu xaasidnimada iska daayo horumar ay gaartaan xaasidnimada iska dhaafa qofka walaalka waa inay soo fariistaan xanuunsanaya dhahay sababta fiidiyogeyga ay u daawanayso 500 600 maxay tahay dii Soomaali la ahayno oo ajnabiga fiicnaanayna ma sheegnaan kul ajnabiga 100% waa in xariis badan Soomaali hadana wallahi runtii إنجن حريص بدي أنا حتى ده فيديو جو رالي جلنا مكبحنا هراء أنت أقول رالي جلنا كبحي لكن أبتنو كتاجنا رالي جلنا وحلهم مكبحنا because أجنبي يقول قف وقول حريص بدي محل أنت أتهربنا أو بعو قاضنا أو تجينا يرب نحتنا معنا حقوق الإنسان كسلوه يعني حير كسلوه يعني مركو صوت تهريب كامل قليا وحبرش على الأدرى محل ده ولا قضية لعجة يسيق لهين والسيا أو عير السيا
yaa waa ninka Soomaaliga maanta intuu aniga guri ii kireeyo idijiyo bil walba 500 ama 600 doolar oo cayra isiiyo iskool ugu daro wadanka ka raaxaysay dhahay miska soo saari kartaa ninkaas isku soo saarano waa fariisan la video waa ka fariisan laha anoo xanuunsan aan soo duubay hada inay sheega inuu Soomaaliye wax isku tara oo qofka bilaadanka walaalka ay xanuunsan wax u qoor ilaahay ha ku caafiyo ha arkin wajigiisa iyo hadalkiisa ha arkin ee maxaa ka dambeeyo qofka leh caafimaad Allah ay siiyo anigana Allah ay siiyo videogan maanta waxa ogaana boorta Soomaali sax inay jirto iyo inay Soomaali ay jirto ajnabigu fiican yahay hadalka inuu soo kooba